Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Daawadayaal ku soo dhowaada qaybtii koowaad ee qisadii la magac baxday Ayaan Daran, taas oo aynu qaybta koowaad idiin soo sarkaxaadin doono. Haddaba ku soo dhowaada daawadayaal mawduuceenan. Asli waxay ahayd gabadh aad iyo aad u qurux badan. Baarinimadeeda iyo farxaddeeda joogtada ahayd ayaa soo jiidatay kalgacal gaar ah oo ay waalidkeedu u qabaan. Deriska iyo qaraabaduna si gooni ah ayay carabka ugu hayn jireen. Guriga Asli wuxuu ahaa golo ay iskugu yimaadaan gabdhaha asaageed ahi, iyaga oo u soo xiisi jiray sheekadeeda. Inkastoo ay 16 jir ahayd, misna meel fog ayay wax ka arki jirtay, waxayna la macaamuloon jirtay dadka waaweyn ama dadka ka da'da weyn. Waxaana loo yaqiinay Farxaan, waayo iyadoo cadhaysan weligeed lama arag, cidina may soo sheegin. Waalidka Asli waxay siin jireen wax alla wixii ay u baahato. Waxay aad u jeclayd riwaayadaha iyo waxyaabaha la midka ah, sidoo kale akhriska ayay aad ugu dheganayd. Marka ay magaalada aadayso iyo goorta ay ka soo noqonayso, cidna isma weydiin jirin. Waalidkeeduna xorriyad buuxda ayay siiyeen, iyagoo kalsooni weyn ku qaba in aanay wax xumaato ah samaynayn ama u soo jiidahayn. Asli oo dhigan jirtay dugsiga dhexe ee Macallin Jaamac, wax saaxiibad ah oo u gaara may lahayn. Gabdhaha ay isku xaafadda yihiin oo dhan iyo kuwa ay dugsiga isku barteen giddigood way jeclaayeen, gurigayna mar kasta ku soo booqan jireen. Haddaba Cali Amuur waxay walaalo ahaayeen Asli, wuxuuna ka weynaa 3 sano iyo dheeraad. Maadaama Amuur iyo Asli ay ahaayeen laba da'ood oo aan loo dhaxayn, waxay isu qabeen kalgacal wada dhalasho. Kii ugu weynaa, Amuur, wuxuu galay Xalane, wuxuuna ka mid noqday macallimiintii BB, waxaana loo wareejiyey degmada Beledweyne. Inkastoo uusan weligii ka bixin Xamar, Cali Amuur misna ma ahayn dadka isku dhajiya goobtii ay ku dhasheen, oo wuxuu jeclaa inuu gobollada kale ee dalka aado. Markii uu Amuur u ambabaxay Beledweyne, waxaa sii sagootiyey waalidkii oo dhan, gaar ahaana Asli. Aad bay uga xumayd inuu Amuur ka tago, waayo walaal kale oo wehel u noqda ma ay qabin, oo aan ka ahayn Aamino yar oo 3 jir ahayd. Markii uu baabuurku dhaqaaqay, kadib gacanta ayaa loo wada taagay ama ay u wada luleen, iyaga oo leh nabadgelyo, soo noqo adigoo nabad ah. Asli oo qoslaysa ayaa cod aanay hubin in uu maqlayo iyo in kale ku tiri, abowge Cali Amuurow, beerrula igu salaan markaad tagto Beledweyne. Cambaro oo ahayd Asli hooyadeed ayaa inta ay gacanta ku dhigtay soo jiiday oo ku tiri, naa ina mari beerrulo lahayne, dadku way inaga tageene. Iyo hooyo macaan, markii dugsiga la xiro ama la fasaxo, Amuur baan aadaya iyo isaga ayaa inoo imanayee, maxaad ka dooni? Waxaa ku doodayay Asli iyo hooyadeed oo Jaamac oo ahaa duqii reerka. Intuu tagsi joojiyey ayuu ku yidhi, war soo dhaqaaqa, dadkii way inaga tageene. Dugsiga Macallin Jaamac, Asli waxay ku baratay gabadh ugu yaraan 5 sano ka weyn oo la yidhaahdo Canab, oo ay isku fasal noqdeen. Canab waxay ka dhalatay qoys aad ugu adag oo ugu dheggan dhaqankii hore, loomana ogolayn gabadhu in ay guriga ka baxdo amar la'aan. Haddii ay soo daahdana, ul iyo suunka aabaheed ayaa lala dhici jiray oo lahaa. Cadaadiskii Canab ay qoysku ku hayeen kama nabadgelin in ay ku kacdo xumaatadii waalidku ka cabsanayeen. Iyada oo marmarsiyo macquul ah sheeganaysa ayaa waxay ballan la dhigan jirtay rag aan mustaqbalkeeda dan ka lahayn iyo wanaaggeeda. Waxayna gaartay heer ay haddii ay qaadka weydo xayraanto, sigaarkana midba midka kale
ayay ku shidi jirtay. Shariif Miicow iyo Xaajiye Xaliimo oo ahaa waalidka Canab ay waxba kamay ogeyn amuuraha dhacaya, waxayna la ahayd maadaama aan cidna gurigooda soo geli karin oo loo ogolayn inay cidi soo booqato in gabadhoodu bad qabto.